بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم داوديال dhageystayaal soo dhawaada sidaan wada ognahay magaalada Columbus Ohio waxa galabtayto ka dhacay howlgallo dhowr oo ay sameynayeen ciidamada ICE kuwaas oo tagay dhowr xaafadood oo Soomaalidu ay degan tahay isla markaana dad ay ka qabteen inkastoo oo la sheegayo in inta badan dadkii ay qabteen ay ahaayeen dad haystay dhalashada dalkan Mareykanka oo ay sii daayeen iyo waliba kuwa siyaabo qaldan ay markaasi ula kulmayeen nasiib wanaag waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wiil Soomaaliyeed oo kamid ah dhalinyarada maanta ay qabteen isla markaana uu dhexmaray wada sheekaysi dheer iyo waliba dood aad u adag asaga iyo nimankii ka socday ICE aadan waa mid kamid ah ganacsatada gobolkan Ohio qadka telefoonka ayaan kula xiriiray aadan ku soo dhawow Ohio Somali TV assalaamu alaykum deeqa waa mahadsantahay waa dhawahay aad baad mahadsantiin adiga iyo bahda Ohio TV bal adiga iyo ICE maantay waxa idin dhexmaray hadii aad nooga warbixiso say wax u dhaceen walaalahay waa mahadsantahay ayaamahanba waa yara newskan ka arkaynay dhankaas Minnesota iyo gobollo kale laakiin Ohio runtii wadooyinka kuma aanan arkaynin alxamdulillah laakiin waa iska rajaynaynay oo wax ayaantan dhan iska socday galabtay marka mar adiga abaarihii afartii ay tahay gaarigaygaan iska soo qaatay qofaan meel ka qaadayay qofkii markuu soo baxayo gaarigiina wali dhiida iigu jiro oo aan wali aan baarkin midna ma gelin qofaan rabay inaan qaado baa nin odiga mask u xiran yahay oo aan wax magaca shaatigiisa ku qornayn darawalka geeska darawalka iga soo istaagay oo degdegana ku jiray fartu sa wareejiyay wuxuu dhahay roll the window marka daaqada hoos u dhaji xoogaa yar daaqada hoos u dhaji oo yar degdeg ku jiro daaqadii marka u dajiyana wuxuu dhahay federal agency aan ahay ID-gaaga produce your ID-gaaga idib markii aan waan weydiiyay waxaan ku dhahay ID-ga maxaa igaga baahan tihiin anay sir badge aan ku dhahay marka badge-kiisi wax yar wax elbriqsi lamida oo meesha ka soo saaray hal mar buu flash ku sameeyay isla markiiba uu celiyay waxaan ku dhahay magacna kuguma qorno ID-gaadana ma arkinin quick flash aad samaysay macnaha waxa kala jeeda markii aad tiri waxaan u baahanahay inaan ogaado qofka aad tahay ID-gaaga ma arki karaa hadii aad tahay shakhsi dawladda ka socda wuxuu si degdeg ah u soo bixiyay ID-giisa asagoo oo aan ku tusinin waxa ku qoran ID-ga ayuu jeebka ku ceshaday si fiican markiina waxaan ku celiyay ma arkinin ID-gaaga iyo agency-ga federaalku waa agency badan yahay agency-ga ka socota ID-gaagana si fiican uma arkin baan ku dhahay marka wuxuu igu dhahay intaas kugu filan adiga federal agency baan ahay ID-gaaga i produce gare si ID-gaaga igu dhahay markaas aan ku dhahay waxaan maxaa xuquuq oo aniga maxaan sharci noocay hanjabiyay ama ay detain baan ku dhahay marka what did I do maxaan sameeyay waa markii saddexaad aan kugu celinayo dhahay federal ID baan ku tusay agency baan ahay ID-gaaga itus intii anoo dhahayo waa mid kale oo daaqada kala taagnaa oo xagga taagnaa soo orday adiga si xoogaa oo dadaal ku jiro oo daaqada hal mar soo gooyay oo iska furay daaqada dhanka passenger-ka ah gaariga wali dhiidigu ii saaran yahay gaarigii hal mar marshadii dhiida geeyay oo parking-ka geeyay furihiina kala baxay banaankana ula baxay markaas xoogaa waxaan yara dareemay markii hore waxaan u maleynayay inuu more explanation isiin doono iyo sababta uu istaajiyay sidaan booliska uga baranayba annaga markaasaan waxaan ogaaday inaan oo detain ahay oo uu aanan bixi karin xor aanan u bixi karin oo hadal bas aanan ku bixi karin oo ay jiraan niman wixii ay rabeen mooy wax kale ay soconayeen si fiican haye maxaa xigay marka markaasaan waxaan ku dhahay federal agency inaad tihiin waa ujeeda ID-gaada waa itustay inkastoo aanan akhrinin laakiin forcefully detain baad igu samaynaysaa baan ku dhahay sababta adii istaajisay imaadan sheeginin kii kala marka xoogaa oo furaha igala baxay aad moodid xoogaa inuu dareemay inuu markaan ku dhahay forcefully detain markaan isticmaalay
uu explanation yara ii galow dhahay anaga waxaan nahay federal agency aan nahay hal qof ma nihin nin waa sida daaqadaada taagan aniga intaan taaganahay laba kuwaasa midka laba kaasa 5 baan nahay qof suspect ah xaafada ku jiro oo macnaha aan raadinayna qofkaas qofku yahay si aan u ogaano inaad is identify gareysaan u baahanay identification kaagana si aniga marka xaaladda waan dareenka horena uu igu yara jiray laakiin first time markii wax kugu dhacaan oo noloshaada marka kugu horeysay saas ay kugu dhacdo inkastoo aad ogtahay inaad si sharci waddanka ku joogtid driver license aad siin kartid waxba dhibaato aysan dhici karin aad ogtahay laakiin waa yara isbedel baa kugu imaanayo aniga markaas anoo og inaan wax sharciga jebinin anoo og haddaan license siiyo inaysan wax weyn laakiin dareen macnaha waxaa igalay qofka markii wax kadiisa uusan weligii arkin inay ku imaadaan xilli uu ku fakero oo ma haysto wax la dhaho inuu ama dagaalamo ama uu freeze gareeyo ama uu cararo saddexdaas u dhaxeeya xaaladda marka xoogaa ilaa xaaladii dhana isla kii bedeshay markay saas sameeyeen waxaan dareemay maskaxdayda dhowr meelood ay aadaysaa mar waxaan isdhahay niman oo impersonation sameynaya ma yihiin tuuga miya ma federal agency saxaha magacooda ma weydiisaa 10 su'aalood baa isla markaba maskaxdaada kusoo dhacayso hagaag goormaad xaqiiqsatay inay yihiin ice kii kale markuu furihii iga qaaday asna wuu la soo baxay markaasuu cabaan meesha ku qabto dhahay wakaasa ice baa ku qoran maxaad kaloo u baahan tahay saaxiibka marka qofkii aan sugaya markuu soo baxayna labaa ka hortagtay oo meesha ku qabatay ay dhiigii u dhiibay waxba ma samaynin marka wuxuu igu dhahay maxay ku dhimaysaa inaad sida qofka saaxiibkaaga samaysid this could be easy and quick buu dhahay marka wax yar oo sahlan bay ahaan kartay maxaad wax weyn uga dhigaysaa tilaabada ku xigto saddexaad inay aan ku hadda detain baa tahay laakiin haddii aad sheekada sii socoto waan ku xiri karnaa haddaad sharci leedahay hadda dhib ma lahan haddaad sharci leedahay maxay ku dhimaysaa maana tusid buu dhahay si reasonable oo caqli u ila hadlay ID-gaagana tus buu leeyahay ID-ga markaasaan usoo bixiyay waxaan ku dhahay even though I am not consent aanan ku ahayn laakiin weli I will still comply aan ku dhahay ID-gii markaan u dhiibay ay arkeen ID-gayga tensionkii dhan xoogaa macnaha dagaalkii dhanba wuu ka degay waa isdejiyeen caada iila sheekaysteen markaas si fiican marka waxaan ku dhahay anaga haddee communitygan police iyaa naqaanaa local baan nahay federal agencies anaga albaabadeena nama soo qaraacaan gaariyaasheena ma joojiyaan waa wax nagu cusub waa dareemi kartaa baan ku dhahay anaga waanu sharci darro waddanka ku jooginin oo sharci haysano laakiin dad immigrant oo soo galooti baan nahay anagoo sharciga haysano ognahay inaan waxba qalad aan ku jirin laakiin qof kasta wuxuu markii ku cusub yihiin oo waliba dhanka sharciga ah waa dareemi kartaan baan ku dhahay miyaysan ka fiicnayn qaab kale oo u wajahdaan inay jirto oo aan ka ahayn inaad dadka guryahooda hor istaagtaan oo dadkan dad immigrant waaye annaga waddan waxaan ka nimid waa iska dareemi karaa dad cusub baan nahay marka annaga nooma fiicnaan ku dhahay caafimaadkeena iyo communitygan uma fiicno inaan guryaheena hortooda idinku aragno nooma fiicno inaan businessadeena hortooda idinku aragno inkastoo aanan dembi aanan gelin waxbana aanan dhiminin laakiin weli ma dareen aan jeclaysanayna ma ahan baan ku dhahay maxay kuugu jawaabeen marka markii waxau dhahay qofkii aan dembi gelinin annaga sharci baan u leenahay inaan meel kasta cagta dhigno xoogaa hadallo oo mataqaanaa aad yaro dareemaysid inuu waddanka iska kaasiinayo ba ku jiraan oo ah waddankan America farta uu dhulka ku taagtaagayo xoogaa uu dareemayo inuu dhahayo wixii hore systemkii hore waa isbedelay annaga meel kastaan cagta dhigi karnaa qofkaan rabnaa la hadli karnaa qofkii naga cabsado inuu wax isku ogyahay baan dareemaynaa sidaad u jeedid buu dhahay annaga laftirkeenu federal agency aan nahay localka kamaanan imaanin waxaa laga yaabaa stateka inala kasoo dibooy gareeyey annaga laftirkeena waa idinku cusubnahay buu dhahay wadamada gobolada naloo diraayo iyo siriyada naloo diraayo you have to understand buu dhahay annaga xitaa situation ugu cusub waaye adiga markaan inta daaqada deji aan ku dhaho give me your ID aad dhahdid sabab
waxaa laga yaabaa annaga laftirkeena inaanan u baranin dad sababna weydiiyo waan u baranay hoo markaa sababtana weydiisid annaga laftirkeena dagaal baan gelaynaa buu dhahay qofkan waxbuu og yahay su-aalo kale aan kusii weydiinaynaa xaaladii waan sii dheeraynaynaa marka xoogahaasi kajan uu u dhahay oo ah wax maad qarinaysaa why are you not producing your ID camal oo kale وهاج لكن آذن مركا لفيرينيو nimankan ICE waxaad haydeen laba qof markay kula kulmayeen runtiina sidaad sheegtay qofkii kula socday waxa uu ku jiray guri waad sugaysay banaanka taagneed asagiina adoo lagu haysto markuu soo baxay laba nin oo kala qabatay ID-giina wuu siiyay arintaasi waxaad moodaa in hawlgalla ay ka bilowmeen magaalada tan Columbus maxaad isleedahay dadka hadii ay la kulmaan midaan oo kale waa ay ku badbaadi karaan dad badan baa jira sharci haysan dad badan baa jira ayagoo sharcigooda guriga uga soo tagay dad badan waxa jira waayeel kuwa waxa jira xanuunsan oo hadii xataa la qabto laga yaabo in maaragtay dhibaato u geysato arrimahaas oo dhan adoo isku soo koobaya walaalay waa sax waana mahadsan tahay waa run qofkii anaga laba waxyaaboodba aad baan u jeclaan lahaa horta aniga anoo awalba ogaa sharcigayga iyo inaan sharci ahay masana xaaladda markay aan la kulmay waa waxaanan weligay arkinin waa waxaanan weligay u baranin haduu waxa ugu badan oo aniga Mareykanka intaan joogay la istaajiyo waa booliis baa ugu badan booliiskana laydba hore ka soo daartaa waa naqaanaa waa la qabsanay waxa uu naga rajeynayo waan garanaynaa laakiin horta marka kugu horeyso oo qof indho u xiran yihiin oo aan gaarigiisa aadan aqoonin oo magaciisa ku qornayn oo hal mar albaabkaaga gurigaaga qaraaco ama gaarigaaga qaraaco qof soo guluutiyana aad tahay inaaza maarar awoodda aad leedahay markaas sharciga aad haysatid waxaad gelaysaa xaalad argagax ku jiro saasoo ay tahay kadibna waa la qabsanaysaa hadda anigoo kale bari haday isoo kale igu soo galaan sidii si ka duwan baan uga falcelinayaa ma naxaayo ma argagaxayo ma dagaalamayo wax walba barasho u baahan yahay marka community-geena anu laba waxyaabood waan dhihi lahaa oo anigu aan samaynayo aniga markaan ayaga ka tegayba looyarkaygaan wacay waan weydiiyey intuu ii sheegayna un baan la wadaagi karaa oo ah qofka hadduu sharci yahay waddankan Mareykan oo sharci ku joogo wax uu ka baqo iyo wax uu ka cabsado iyo dadaal dheeraada oo san awal samayn jirin inuu sameeyo uma baahno community-gana in macnaha ay cabsadaan aad baan horta aan uga xumahay dadka inay inta badan community-ga la cabsi gelinayo laakiin inaan cabsano waa runo anayba igu dhacdo awal baan waxay isdhahay ISIS kama cabsanayso laakiin marka ugu horeyso albaabkaaga ay qaraacaan ku naxdin wadan shishana aad ka imaatay oo dagaalo laga yaabo inaad soo aragtay wax aad maqlaysay dhagahaaga wax ku dhacayeen waa naxaysa dabcan laakiin waxaan aad u jeclaan lahaa community-geena in ay degaan oo aysan ka duwanayn booliiska oo hadday sharci oo si sharci haddaad ku joogtid aadan wax dhibaataa la kulmaynin oo qof citizen America aad wax qalaba aad sameeyay horta pointigaas aad baan u jeclaan lahaa community-geena in aan si fiican isku gaarsiino kulay inteena badan waa ognahay midda kalena waxa waaye dad waaweyn baan leenahay dad dhalinyaraan leenahay hooyooyina joogaan dad xoogaa sharciga wax ka yihiin jiraan in laga yaabaa inay jiraan ma rabno runtii dadka saas dadka uga naxinayo guryaheena iyo wadooyinkeena inaan ku aragno runtii way dhibaysaa qaab kasta oo dawladnimo ama sharciyana ama lawyer ama community organization taas samayno aan dhahno war anaga dad soo guluutiyahana sharci baan waddankan ku joognaa at least majority of us kuwii sharci daraana si legal ay usoo mara laakiin dadka waayeelka iyo dadkeena iyo dhalinyaradeenna iyo businessadeena nooga dhex baxa community-ga hanaga terrorize garaynina in si jamaca loo dhaho aad bay u fiicnaan lahayd ama inta loo tago xafiiskooda loo tago la dhaho this is a concern we have even though waa sharci nahay laakiin aadan marka aan fiirinayno ICE wax xafiis oo ay leeyihiin ilaa hadda iyo meel loogu hagaago ma jirto sida la sheegay waxaaba dhici karta in gabi ahaanba inta ka howlgelaysa hadda magaaladan Columbus ilaa maanteeto ay ka yimaadeen out of state oo ay ka yimaadeen gobollo kale
waxayna ku socdaan amar madaxweyne marka cabasho ay community soo gudbiyeen communityga laftigiisa la yiri ka adeegta oo maaragtay soo qabta dadka sharciga aan lahayn marka muxuu tarayaa baad u malaynaysaa haddii la qayla dhaamiyo ama ay bulshadu isku soo baxdo miyaadan la socon wixii ka socday Minneapolis waa runta laakiin wadankan Mareykanka sharcigiisu local iyo federal buu kala baxaa localku sida sharciga ah ama loo yaqaan waxay tahay localku wixii xakameyn waayaan baa federaalka loo cabasho loogu tagaa waa dareemi karnaa aniga looyarada markaan la hadlay ayaga laftirkoodana aan la hadlay waan ku dhahay aniga communitygeena idamaana wacanin idima baahnin dhibaato ma qabno sabab aad loogu imaateen booliiskeena iyo dadkeena ay xakameyn waayeen ma aragno wadooyinka inaad noo banaysaan baan jeclaan lahayn baan si toos ugu dhahay asagii ninkii markaas la sheekaysanayay wuxuu dhahay ma ogaan kartid stateka aad joogtid inta qof oo rabto inaan wadadan joogno adigu haddaad saas aaminsan tahay waxaa laga yaabaa boqolaal ka badan oo gobolkan kula joogto inayna rabaan inaan wadadan soo aadno waa sax xaq baad u leedahay communityga inaad dareenkaaga aad cabirtid taxi day tahay localka awood buu leeyahay anaga aan ka tilaabi karinin fourth amendment aan qabanayo aan ka tilaabi karin oo aan qof research oo qalad aan ku sameyn karin laakiin sida adigu rabitaankaaga u sheegaysid baa anaguna rabitaanka dad kale ugu soconaa horta taas way jirtaa waa sax laakiin wadankan communityyaal fara badan baa imaadeen anagu ugumaanan dambaynin ugumaanan horeynin community walbaba waxbaa lagu sameynayay qaarkood waxbaa lagu dhibaateynayay qaarkood waa la adoonsanayay qaarkood sharciyada loo diidayay qaarkood waa la dilayay wadankaana saasuu weligiis ahaa community walbana caqabada ku imaata dareenkooda ayagoo ay cabiraan iyo qaabka ay uga falceliyaan iyo qaabka ay u address gareeyaan bay wavekaas uga gudbaayeen waa inaan anagu marka inta isku nimaano oo ma dadkeena communitygeena inta wax yaqaano ama fahmaysa dawladda ku xiran ay imaadaan wuu jiraa systematic way oo looga hortago xaafadaha Soomaalidu u badan tahay markay nimankan soo galaan waxaa laga yaabaa hal qof oo dambi aan lahayn inuusan ku jirin laakiin hal mar qaylada isla raacdo mana rabno dad badan ku xanuunsanayaan dad badan naxayaan so waa inuu jiro mar walba qaab baa jiro looga gudbaayo waxaana looga gudbi karaa on dadka sharciga yaqaano immigration lawga ah in si sax loola xiriiro oo ayaga la dhaho maxaan sameynaa concern qabnaa inaad dadku degaan oo wax sharci ah oo consultation lagu soo sameeyay informationka in si fiican looga filter gareeyo oo communityga la dejiyo la dhaho sharciga wadankan ku joogtaan waxbana ma halaabayaan aysna booliiska waxba kama duwano iyo dhinaca kalena nimankan argagaxa ay bulshada ku hayaan iyo naxdinta ay ku hayaan oo dad badan aan la xiriiray sidoo kale dhahayaan anigana igu dhacday qof waayeel haday maanta ahaan lahayd oo gaariga ku jirto hal mar nin uu ku dhaho daabka qaraaco mask uu xiran yahay wax walba ku dhici karo marka dareenkeena labadaas aad baan u jeclaan lahaa inaan u gudbiyo ma fahmi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa aadan oo ka mid ah jaaliyada gobolkani Ohio kana mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Columbus oo galabta uu la kulmay oo galabta ice ay kula kulmeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada Columbus isla markaana ay isaga iyo ice dhex martay dood aad u adag ice waxay sidoo kale tageen xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada Columbus oo ay ka mid tahay xaafada Agler Green oo ay xaafadaasi garaaceen qaybo ka mid ah guryaha ay degan yihiin dadka Soomaalida dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa wixii warar soo kordha aad ayaan kuugu mahadcelinayaa aadan sidoo kale deeqo mahadsantahay aad iyo aad mahadsantahay nabiga iyo baxda TV. Assalamu alaykum.